munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayay ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa lagu qabtay Akademiyada Booliiska General Kaahiye magaalada Muqdisho. Xafladan abaalmarinta oo ciidanka booliiska loogu mahadcelinaya ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, wasiiru dowlaha wasaaradda amniga, agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya, gudoomiyihii guddiga doorashooyinka madaxweynaha, taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan, saraakiil ka socotay ADMIS, xildhibaano, banda music, kooxda Heegan, dhammaan unugyada amniga iyo marti sharaf kale. inta aan Soomaaliya joogay waxaan goobjoog u ahaa 3 doorasho. aad baan ugu faraxsanahay wada shaqaynta ADMIS iyo ciidanka booliiska Soomaaliya. nabadgelyada ay ku qabsoontay kuna dhamaadeen doorashooyinka waa guul Soomaaliya u soo hoyatay. waxaa sidaas munaasabada ka sheegay sargaal ka tirsan ADMIS una xil saarnaa arrimaha doorashooyinka inta lagu guda jiray. Seen 3 elections in Somalia, but I want to say this was the most difficult one. inta aan joogay Soomaaliya waxaan goobjoog ka ahaa 3 doorasho agaasinkiisa iyo sugudiisaba. laakiin midkan wuxuu igu ahaa midkii igu adkaa markaas. caqabadooyin badan iga soo wajahay waana ku guuleysanay. And it gives me pride today to stand here to thank the police commissioner for inviting me because it signifies the following. gudoomiyihii guddiga doorashooyinka madaxweynaha Senator Gelle iyo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay ciidanka booliiska sida ugu dhabar adeegeen way ugu mira dhaliyeen in dalka ka qabsoonto doorasho amni ah. waxaan runtii marna ilaawi kalin ciidankii booliiska oo rag iyo dumarba isugu jiray wiilal iyo gabdho gaar ahaan taliyaha ciidanka gobolka Banaadir oo uu hogaaminayay iyo intii la shaqeynaysay oo uu kamid ahaa taliyaha aeroboort. aad baan idinku mahadcelinayaa. xaqiiqdii waxaan ka marxaanti furayaa inay u qalmaan ama istaahilaan dalkooda inay u hogaamiyaan meeshii nabaddu jirto. ahaantii waxa weeye waxaan rabaa inaan mahadceliyo ciidanka booliiska qaybihiisa kala duwan oo hogaaminayo taliye xijaar dhabar adayg ay u soo dhabar adeygeen iyo kaalinta ay ku lahaayeen amniga doorashada hoggaan ahaan iyo ciidan ahaan. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sareeyo Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo soo xiray xafladda loogu mahadcelinayay ciidanka booliiska ayaa sheegay inay guul ugu soo dhamaatay doorashadii waqtiga dheereed uguna adkeyd asigoo alla ka sokow aad ugu mahadceliyay ciidankii suurageliyay in dalka doorashooyinka si nabadgelyaha ugu qabsoomaan. waxaa sharaf ah inaan maanta aan wada joogno muxuu ahaa waxaan ku talagalay maanta inay noqoto maalintii mahadnaqa oo ay taariikhdu tahay 22 bisha May waan soo gabagabaynay guulna noogu soo dhamaatay doorashadii dheereyd ee adkeyd ee waqtiga badan qaadatay ee juhdiga badan aanu gelinay ilaahaygi noo sahlay oo noogu dhameeyay guul. horta marka horeysa inay isaga ku xamdi noqno oo ilaahay aanu ku xamdi noqno marka xigana ciidankii hawlgeli ee hawshaas fuliyay oo shaqada qabtay inaanu niraahno waa mahadsantii. ujeedada ugu weyn ee aan maanta isugu nimi waa labadaas qaybood waay. man laa yashkuri naasa laa yashkuri Allah. ninkaan dadka iyo waxqabadkooda ku shukrin ilaahayna kuma shukriyo. marka ujeedka ugu weyn annaka maanta wuxuu ahaa inaan dib u xusuusanno habeenadii badnaa soo jeedkii badnaa shaqadii badnayd ee aanu soo qabannay ilaahigii noogu soo gabagabeeyey si nabadgelyo leh dalka kana soo gaarsiiyey doorasho power of